بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. دمان أرضي جليس امتحان كدسية سريع معلمينتا والدينتا بعد وحبرشة أنت كلا دنيسة وحبرشة وحن كسلام يا سلامة إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت وحدير صدح قضب مهم أنا ما تين لو ذاو قضبك كوباد امتحانك فصل كلابية طبنات الدوسية سريع إن شاء الله تعالى وسود وياهي بش جون دحدة أيام لقادة دونا سيدا عودت وحين كبورين هي إن الطواب شيء استيارسان خبيسان وحكة استوضب بهنا إذن امتحان كانوا قشان إن هذا هيستان أنت وقت اللي جاي قضب كلابات سأل صعتان وزارة وحبرشة هداية تعلن سريع الصومالية وحي جوجي سنة كلا صور في إلا بعض كن يصدح لواتن كي fiigii ama kharashkii laga qaadi jiray ardayda looga qaadi jiray si loogu sameeyo aqoonsiga imtixaanka ku galayaan ama kaarka saad la socotaan wasiirka waxbarashada hidaayada tacliinta sare mudane Faarax Sheekh Cabdulqaadir bishii May ee sanadka 2023 wuxuu u sheegay dadweynaha in aan lacag ardayda looga qaadi karin aqoonsiga ay imtixaanka ku galayaan arrinkaas wali halkiisii ayuu ka soconayaa lamana ogola in arday maanta iyo wixii ka dambeeya looga qaado lacag aqoonsiga imtixaanka uu galayo mid saddexaad oo iyadana muhiim waxa weeye hadii alla idmo laga bilaabo hadda ilaa imtixaanka inta laga galayo waxaan soo gudbin doonaa fariimo kala duwan oo la xiriira imtixaanka waxaan jeclaan lahaa in markasta aad la socotaan oo waxyaabaha la idin sheegayo ama tacliimaadka la idin siinayo aad fulisaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin إلهي سبحانه وتعالى هيدين في الامتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.